halkani waa qolka lagu dhex gubayo Luulay Cabdicasiis uu ku gubayo ninkeedii muuqaal qarsoodi ah ayaa markii ugu horeysay la helay Luulay Cabdicasiis waa taa sariirta ku jiifto goordhow ayuuna soo galayaa Sayd Cali Macalin Daawud si uu xaaskiisa u guba naftana u dhaafiyo subhanallah markaan Sayd Cali waxa uu wataa taraq iyo baasiin si uu u gubo Luulay Cabdicasiis fiiriya sariirtaas aad arki kartoon ku soo dhaweynayo waxa jiifto Luulay Cabdicasiis markaan ficil kuma dhicin laakiin goordhow ayuu ficil ku dhici doonaa inta aanan soo gudbin muuqaaladan kaamirooyinka qarsoon ee guriga ku dhagnaa duubeen waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto si uu saaxiibo fara badan oo xog u ogaado u gaaro adigoo u share gareynaya dhammaan saaxiibada Facebook oo kugu heliyay si Sayd Cali Macalin Daawud si degdeg ah loo geeyo tiirka toogashada loona toogto bogonna falow garay markaan wax uu sameeynaya Sayd Cali Macalin Daawud la ilaaha warninku qaatil waa warninkan Sayd Cali Macalin Daawud gabadha waa gubay war muuqaalkan fiiri muuqaaladan CC kamerada ay duubto gabadha la gubayo oo Sayd Cali gubayo si fiican u fiiri warninkan kiiska waa ku cad yahay war waa ku cad yahay gabadha waa ta halkaas jiifta marka Luulay Cabdicasiis sariirta muujeeda qofka jiifo waa Luulay Cabdicasiis Sayd Calina waa qofkan soconayo oo isla markaasna rabo inuu gabadha gubo muuqaalkan waa muuqaal CC kamerada ay duubtay isaga oo Sayd Cali gubayo xaaskiisa Luulay Cabdicasiis subhanaka ya cadiim war muuqaalkan markii la baahiyo wallahi waa argagaxay fiiri muuqaalkan si fiican u fiiri ha degdegin waa jimco ku jimcayso fiiri markaan waxa uu markaan sameeynaya oo gudaha u galaya waa qolkii ay ku jirtay Luulay Cabdicasiis sariirtaas aad arki kartoon ku soo dhaweynayo waxa jiifto Luulay Cabdicasiis markaan ficil kuma dhicin laakiin goordhow ayuu ficil ku dhici doonaa subhanaka ya cadiim si fiican u fiiri ha degdegin markaan Sayd Cali waxa uu wataa taraq iyo baasiin si uu u gubo Luulay Cabdicasiis fiiriya CC kamerada ama kamerada qarsoon sidaad u garanayso ayaa muuqaalkan duubtay markaan Sayd Cali waxa uu gudaha u soo galayaa qolkii ay ku jirtay xaaskiisa Luulay Cabdicasiis isaga oo rabo inuu gubo fiiri markaan ha degdegin fiiriya wallahi Luulay markaan qolkaan ku jirtaa ka war gabadhan markaan waa noosha Luulay Cabdicasiis si fiican u fiiri meeshan day qolka ayuu soo galayaa mugdi waay waa nin wax damacsan moogtahay shamuurey markaan waa la soo dhaafaan u maleeyahay meeshii uu ku qayilaa shamuurey fiiri markaan qolkii ayuu soo galay taraq iyo baasiin ayuu isticmaalayaa fiiri qolkan haddaan si fiican kugu sharaxo qolkan waa qolkii ay ku jireen ilmaha maxkamadda ka soo muuqday qolkan ma ahan qolkii jiifka waa qolkii uu Sayd Cali sheegay inuu gubay muuqaalo CC kamerada ay duubto cadeena ayaaba la helayba si fiican u fiiri hal sariir ayaa taalo sariirtaas geeska taalo waa sariirtii gabadha yiriista ay sheegto tiraado waa ku jiifa jiray armaajadan geeskaasi ka muuqataa muuqaalkan waa muuqaal CC kameradu ay duubtay waana Sayd Cali oo gubaya xaaskiisa Luulay Cabdicasiis wax walba maanta banaanka yimaadeen go'aanka markay maxkamaddu gaartay isla markaasna Luulay lagu hubsada qabriga inay gashay markaas oo maanta la duugay ayaa muuqaalkan la soo fasaxay si fiican u fiiri markaan wax uu sameeynaya Sayd Cali Macalin Daawud la ilaaha warninku qaatil waa warninkan Sayd Cali Macalin Daawud gabadha waa gubay war muuqaalkan fiiri muuqaaladan CC kamerada ay duubto gabadha la gubayo oo Sayd Cali gubayo si fiican u fiiri warninkan kiiska waa ku cad yahay war waa ku cad yahay gabadha waa ta halkaas jiifta marka Luulay Cabdicasiis sariirta muujeeda qofka jiifo waa Luulay Cabdicasiis Sayd Calina waa qofkan soconayo oo isla markaasna rabo inuu gabadha gubo si fiican u fiiri wallahi waa yaaban marka kan arkay ya waa u socdaa markaan waa kaasa muujeeda marka hadeertaan ayuu daaray waa kaasa gubniinkiya bilowday macnaha ma awoodno waa idin soo bandhigi lahayn laakiin Facebook sharcigiisa diidayo in muuqaalka macnaha gubanayo qof gubanayo la soo baahiyo laakiin fiiri waa kaas fiiri Sayd Cali Macalin Daawud muujeeda waa ka soo bax marka uu soo baxay fiiri kamerada haydo si fiican u fiiriya fiiri uu soo bax marka ya uu soo baxay Allah ilaahay waa lagu fahmay warkaas waa cadiya muujeeda marka gabadhiyo gubanay marka fiiri fiiriya si fiican u fiiri joog subhanaka ya cadiim subhanaka ya cadiim markii u horeysay waxa la helay muuqaalo si toos ah u muujinaya qaabka uu Sayd Cali Macalin Daawud u gubaya xaaskiisa Luulay waana kana muuqaalka uu sida tooska u gubayo xaaskiisa Luulay Cabdicasiis fiiri markaan qolka ayuu markaan Sayd Cali soo galaya waxa uu rabaa inuu xaaskiisa gubo muuqaalka fiiri meeshan calaamad ku galawaya gabadha waa tajiifta sariirta fiiriya subhanallah war muuqaalkan dhamaantii share gareeya war faafiyo oo laamaha amniga la wadaaga cadayna ha noqoto muuqaalkan war dhamaantiin muuqaalkan like saar oo share gareeya gabadhii Luulay waa la duugay ilaahay ha u naxariiso jannatul firdawsna ka waraabi qaybta hoose ee commentigana haddii aad maanta jimcaha u awoodi weydo Luulay ilaahay ha ku naxariisto waxaad gashid anu ma ogi fiiri ninkaan tiirka toogashada hurma markaan fiiriya waa u galaya markaan qolka
waraag warkiiska ninkan waa ku cadiya war ilaahana dilaahe gabadha ninkan toosu u gubay fiiri meeshaan subxaan allah waa argagax arrinkan fiiri allah allah hadi hay hoogayey baay hay oo toosu u gubaahe hay